السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان أمد الصوماليين مال والباجوكتان أني وذا السلامي أصحابته في الملك كله وحارب أنا عاوك هذا البرنامج كان ibkii ka dhacay laba qodob oo qodob kuwaad ahay ziyaaradii oo ku tagay Roble ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka oo Nairobi ku tagay oo cadeeyay in wax waan iyo tanaasul ay jirin dhinaca badda arinta badda oo Soomaaliya iyo Kenya u dhaxayso inay jirin taas waa farxad rogmina abadiidanahay in Kenya la fadhiisto laakiin maadaama ra'iisul wasaaraha wararka soo baxay dhinaciisa cadeynayo oo dhahayo waan dhan wada hadal ee dhaxmarin wixii ku saabsanaa arinta badda taas waa iska farxad oo macquul ah oo la qaadan karo oo waxay qoreen wargeysayaashii joornaalyaashii iclaamiinta oo Kenya inay waxba ka jirin oo dowladda Kenya ay iska wadato oo shacabkeeda ku dejinayso yaana shacabka Kenya waa dhibayiin sida ognahay waxay ku dhibayiin qaadkooda iyo daroogadooda oo Soomaali tagi weyse xayraad ay saartay dowladda Soomaaliyeed dhaqaalaha oo dowladda Kenya dhib badan ka gaaray sida la socono iyo shacabkeeda marka ayaga riyo ee ku jira shacabka Kenya maadaama ay maadar ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya maxay qarartay wararkii iyo wargeysayaasha ka soo baxaya Kenya in lagu dejiyo shacabka Kenya oo arinta Soomaaliya badda ee waan ka socoto iyo ganacsigooda muqaddaraadkooda ee geenayaan Soomaaliya in waan ka socoto taas kow waa qodob kow oo lagu dejinayo shacabka Kenya sida oo wararka soo baxaya dhinaca ra'iisul wasaaraha oo wax waan iyo ay jireen Soomaaliya iyo Kenya oo badda ka dhaxaysa taas waa qodobka labaad oo caawa ka hadlayno maadaama waqti badan haysanin oo ka hadlayno maxaa waaye dhibka ka dhacay shabeellada ee u geysteen ciidamada Amazon Afrikaanta ee u geysteen shacabka Soomaaliyeed xasuuqay u geysteen taasaan rabnaa inaan ka hadalno xasuuq waa kan dhib maaha Amazon waxay sameysay waa xasuuq oo xuquuqa insaanka iyo dad caqli leh iyo diin
وأقلانين أدونك تيسا من أمازون وتعدي وعد وقيتكو قنبش اللهين وحيو قيستين شعبك الصوماليات وسي وفول حمئة مكارنتا صاربنا كهذا وحل يابله والسؤال أميسون أيضا صومالي محيو جوكتا أميسون صومالي محيو جوكتا إني أمني كسوكتا أما إني دميسو شعب كالصوماليات هذا شيء يا أصحابتي أميسون محيو جوكتا صومالي إني أمني كسوكتو أما إني دميسو شعب كالصوماليات ومد سؤال جواب باهنه لأن أمازون دور مريسان أفعال كانوا كلا سميسي دور مريسان سميسي تعدي كان أمد الصوماليات كو سميسي وحكا هاد لواي ما دام وحي هور لك هاد لواي إداد بدن حسوقين إداد بدن ديلين حقدرة يكون ديلين ما أنت نتيجة الوطنة هذا شيء قرية أصحاب هذا شيء قرية ميل والباجوك توني والسلام ما دام أتيه هرا لك هاد لواي وطنة نتيجة الوطنة براد عد وقيت وقنبش اللهين إما أنت محس سميين إني حسوقان دانيار إيداد وسك حمالنايو oo dhibna samaynin oo dhulkooda iska joogaan oo iska shaqaysanayaan ina sida ari camal la soo qabsado ariga ka daranba la soo qabsado oo la xasuuqo oo si ibn aadam ka baxsan lagu sameeyo waa shay تعجب marka Amazon muu joogtiin amniga sugto sheekadii shabaab bay sameynayaan sheekada waa sheekada shabaab ay sameynayeen waana ka dariyeenba tee sameeya markaan sheekada maxaa ku maaday ama dhibka soo dhacay si la sheegayo wiilal Soomaaliyeed oo beerley oo beertooda ku dhex jiraan oo iska xamaalanayaan oo familkooda u xamaalanayaan oo iska masaakiin in la soo qabsaday beertooda in la galay oo la soo qabsaday afar wiil oo iska soo kaxaystay waa soo socdeen meel u jirto 2 kilomitir dhalinyar kale oo gaari ka halaabeen oo gaarigooda meeshii yaala sameysanayo taa kale la soo qabtay afartii hore iyo saddexdii dambe oo la isku qabtay meel fog ee la tageen waa togteen madaxay ka togteen raggii dhalinyartii masaakiinta ahaayeen ee madaxa ka togteen markaasaa kadib miine ay ka soo bixiyeen oo shabaab meel gelisay oo ka soo bixiyeen miinadii la soo qaaday oo awalba qarxin barti miinada taala la keenay raggiyo la soo dilay madax laga soo toogtay miinadii meesha taala la kor saaray waa lagu qarxiyay
raggii Soomaaliyeed bartaasi ayagoo dhinteen dhimasho kale lagu kor daray waaba dileen maska dhaafan ayagoo dhinteen dhimasho kale lagu kor daray wax ibni aadamnimada diidayso iyo caqliga ka weyn waa xasuuqi shabaab وحسوق الشاب قف انتي وميت كيسة قف انتي وميت كيسة لسي قبايو كورم الصومالية صومالية قف انتي وميت حقدر الود لي ونقول كيسة جوجو ولد لي اميت كيسة مين لو صاري حق درع عد وجيت وجنبش الله وقردرع عد جيت وجنبش الله وحلو قبت ماله دليرتاس واسك شقي سناين تهم ما انت يعني قرى ما قادن عيدنكي امسون مكنت عادين ايوه بيرتود ku jiraan la soo qabsaday ayuu gaarigooda ka halaaw jidka iska wadada joogta iska sameeysanaya la soo qabsaday markaas in la dilay aamiina la kor saaray in la dilay aamiina la kor saaray marka Soomaaliya mana qabada midaan door mar oo sidaan oo kala sameeyeen shabaabta Amazon Muqdisho dhaxdeeda gaariga dadku ku jiiri jireen ilmaha iyo dumarka Muqdisho dhaxdeeda cid kasta Muqdisho joogto ogta marka maadaama midaas laga hadli waayo inta sano sameeyeen markan caadi u soo bareertay in dadkii laayaan marka mandate-ki iyo hooshii ayaga loo keenay Soomaaliya mandate-ki iyo hooshii loo keenay Amazon Soomaaliya ma qabadoos marka ayadoo awalba wajiga hore ee dagaalka ay ku jireen oo ciidanka Soomaaliyeed wajiga hore jiro oo ayaga gadaal joogan maxay ku darsadeen in dadka laayaan meesha tagaan maxay ku darsadeen in dadka laayaan hal sheer galay asxaabti hal sheer galay Soomaaliyeed la gaarsiin barnaamijkan fadlan hal sheer galay ayagoo أول بمجيء عيدنكي ومجيء الشباب إلى دجال تمينين أو عيدنكي الصومالي يهركعيني هذا محي قدر صدان إن أمد الصوماليات إلايان مساكين تد وسك جوجا دول كودا وسك شقة سنايا إن لايس أمسون ما أنت مركب والدينتي إدتكي هلدي رجاس مساكين الوحى السوقي بقى محيكا قبتين مظاهرات يو مقدشو اسكسو بلان بح ايه سنب waxaan u sheegaynaa dawladda ku meel gaarka dawladda federaalka ra'iisul wasaaraha madaxweynaha iyo cidii qusaysa inay arintaas wax ka qabtaan waa nimanka jooga golweyn iyo buula mareed iyo danow nimanka la dejiyo waayo oo beerahayna dhaxda laga dejiyo beer lama tabcado bar lama raacdo yani wada lama mari karo qoftay arkaan oo indhaha saaraan waa dilaya arrigaas uma adkaysan karno aan idin sheegayna oo sharci ahaan ku talinayna meydadka lama duugaayo ilaa ay ka cadeeyaan dadkii dilay oo sheegaan oo apologize bixiyaan oo sharciga raacaan oo wixii mudnay la wada galo waxaan wargelinaynaa dawladda maamulka mataqaanaa oo ciidanka meeshaas joogay waxaan rabnaa beeraley maantay in loo fasaxo inaan la dagaalano nimankan yimiday
naloo keenay oo na soo kordejiseen reer guuraa ma nihin ma guuri karno beerteennay kor degan yihiin waa in naloo fasaxo haddii kalena nalaga qabto taariikhda lama arag ama dalkan xaasidnimo iyo dhibaato intaas leeg ciidamo shisheeyo intaas ka geysta weligeed lama arag waxaan ka codsanaynaa bulshada caalamka dadka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed haddayba shalay waxaan ka hadli weysay inaan la aamini karin ay iga muuqata in arrinkaas ayadaa wax laga qabto maanta meedkeen oo filinjiyeer ugu jiraa ilaa iyo haddeertaan in wax nala hadlo xalay ilaa iyo haddeertaan CID isbitaal Madiina aan ka dawareegeen xal waxa la gaarsiiyay heer wariyaasha anaga war naga duubaa in la ceebsado oo la bursado taasna waxaa sabab u ah dowladda Soomaaliya lama arag dad inta la dilo la qaado miina lagu xiro hilibkooda la waayo halkaas ay u oolaysaa dowladda u yaalin loorarkaas waxa ku jira oo la aqoonin dad baaba'aya intaas dowladda looga fadhiyaa mudaharaadkana waa la wadayaa cabashada waa la wadayaa ilaa dowladdu ay xal ka gaarto arrintaas soo kama qalaysin Soomaaliyeed inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay sabra ka siiyay ilaahay ka dhig shuhada gacanka xaq darana ku dhintay marka aan cid u xameeno hadalka maxaa looga fadhiyaa dowladda Soomaaliyeed inay jawaab ka bixiso la aasmaayo wiilashan ilaa jawaab ka bixiso dowladdeena sharafta leh oo u horeeyay madaxweynaha Farmaajo iyo taliyaha ciidanka Jarnaan Oduwaay ayaga laga rabaa ra'iisul wasaare Roble in dhiigan oo wiilashan meel saaraan ayaga loogu fadhiyaa xaqood inay ugu soo dhiciyaan Amisom iyo ciidankeeda xasuuq ku sameeyeen shacabka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliya loogu fadhiyaa in dhiigan oo daatay xaq darada oo isku qasmay hilibkooda raggan oo maanta la kala garanay keeway oo ayaga dhan juwaan lagu soo shubay hilibkooda juwaan lagu soo shubay lana dad miina ku qarxada waay hilibkooda in la soo guray oo juwaan lagu soo shubay oo farjeer la geliyay فرنجيرا لقليي dhibkaasna maxaa loogu fadhiyaa in dawladda Soomaaliya xaliso dawladdeena ku kalsoonahay madaxweynaha sharafta leh iyo Jarnaan Oduwaay iyo ra'iisul wasaare xaqqa masaakiintan oo jareerta Amisom dhameysay ayagoo dhulkooda dhex joogan wiil Soomaaliyeed ayagoo shaqaysanayaan goobta shaqadooda joogan lagu dilay xaqooda soo saaro waa ama ma hino sida ayaga dhahay shacabka lagu daayay ayaga xaqooda soo saaranaya shacabka Soomaaliyeed ayaga xaqooda soo saaranaya shacabka Soomaaliyeed waa shacab la qahri karin waa shacab ajnabi u jabaynin waa shacab xaqiisa soo saaranaya laakiin waaye dowladooda sharfayaan nimankan Amisom miska cili weeyeen laakiin dowladooda sharfayaano dowladda laga rabaa in xaq oo dhiigan daatay meel u saaraan Amisom hadii saan wadaan ku socdaan wallahi billahi wallahi shacabka Soomaaliyeed ee muslim muslim وضروري على شير قري أصحاب على شير قري فضلا وضروري أمسون إني حد لو يلو أوجاتو أيضا وضن كم ما تدري كجوكتا أو إن لا دجالان أرجع عشرة ما إن لا دجالان شعب كصومالية دو مساكينته ما إن لا دجالان شعب كصومالية دو إسكشق سنة يانو
xaq yoomkooda borsanaayo dil haddii rabaan maxay u tagaan shabaab maxay u joogaan Soomaaliya lacag ku qaataan inay shabaab la dagaaltamaan ma hayna la dagaaltamaan shacabka masaakiinta oo gacanta wax ku haysan qof maskiin gurigiisa jooga iska shaqeysanayo goobtiisa shaqada jooga inuu loo yimaado xaq daro laan oo lagu dilo why inta ka dhacday sababtaasna maxaa keenay siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo isku mashquulsan doorasho iyo filim kale iyo Kenya iyo Balaay iyo qababac iyo kursigaas ninkaas soo koro rabo markaas ummadda Soomaaliyeed xaqooda iyo la dayacay markaas midba meel lagu dilaa mid keedisho oo soo weerarta oo diyaarad lagu rusheeyo iyo mid dhulkiisa dhexdiisa lagu dilo ciidanka Amazon dilaan Soomaaliya hurdada ka kacayna wadankan ina madinimo iyo gacan isku qabsi wax lagu qabsadaa iyo cadowga koowaad oo shabaab iyo cadowga koowaad oo labaad ajnabigan Imaaraadka Kenya waa kulli cadow si loo waajihi la rabaa shabaab Kenya Imaaraadka kulli waa cadow Soomaaliyeed cid ku ogal ma jirto adeer macaana maanta inay wargaarto Soomaali cid u ogal ma jirto anaga dhaxdeena isku ogoleen dadaan magaciisa mandate ku qaadaan qaska Soomaaliyeed ina Soomaaliya toosin oo Soomaaliya dadaan maxay ku qaataan qaskan iyo dagaalkan iyo jahawareerkan iyo dhiigan daadanayo in lacag ba ugu socoto mandate ku qaataan Soomaaliya san u qasnaatay oo shisheeye u shaqeeyo marka kow iyo lama iyo cod dheer iyo cod gaaban baa ku hadlaynaa dowladda Soomaaliyeed maxaa laga rabaa warbixin cad inay ka soo saarto raggan oo lagu laayay dhulkooda iyo goobtooda shaqada kan waa xasuuq kan UN ka la gaarsiinaa xasuuq waa kan in la xisaabtamo Amazon iyo ciidankeeda iyo ciidanka bartaas joogay shabeellada joogay in la xisaabtamo waaye kii ugu weynaa janankooda ilaa midka ugu hooseeyo ciddii falkaa ka dambeysay oo dadka rayidka masaakiinta inuu lagu xasuuqay ciddii ka dambeysay in maxkamad la saaro waaye in maxkamad degdeg la saaro waaye ana waa dhig Soomaaliyeed dhul Soomaaliyeed oo masaakiin iska wax qadaro lagu dilay adeer dil arabtina dad arabti xasuuqdii shabaab xasuuqa waa kaas durar ku jiraan dadka shaqadiina oo ina Amazon u joogto $1,000 u qaataan cala askari waa shabaab madaxooda marka shabaab hal dagaaltamaan shabaab waa shabaab ma masaakiinta beerlushigan iyo masaakiintan dhulkooda iska joogaan eelayso Amazon marka maanta tan hadda looga aamuso بريتو كويني كينايا أمسون هذا ما تلوغ آمسو بريتو كويني كينايا ما إنه الصعود يمر مرار الكرام ما دولة الصوماليات ومدحوينها وهرايا رئيس وزراء وكحيقو جرنال أوليواي سد حدودا ميسك أسارا إن شاء الله دولة دينا هو كالصونا نجا إني وحكا قبانيس markii alu hordhicin mudaaharaadkana waa soconay dad kan oo dhiig ka daatay ayagana xaq u leeyihiin banaankaas fadhiyaan in la aasin raggaas dhinteen Allahu naxariisto farjoorkooda ku jira intii dawladda Soomaaliyeed ee ka soo bixinayso jawaab cad waalidiintii familkii iyo dadkaas oo dadka ka dhashteen laana dadka dhulka ma ka dhashay dadka ka dhashteen
وإن مظاهرات كودا يوم يعيش بنانكاس مظاهرات سلمية وفوضى كجورين إن السميان حق كودا دولة وشيكتان سيدا كوهلان حق كودا مظاهرات كودا إن وطان أو سلمية دولة الصومال إلا بجواب كبحسو الآسي ما ينادهان دad kan ilaa ay jawaab ka bixiso meesha xasuuqa ka dhacay mar walbana saano u dhaca midkii shacabka Soomaaliyeed saanay ku dhamaadeen mid Kenyaati disho diyaaraha Kenya dilaan mid Amazon dururkas ku disho tii dhacdo kala hadda mid diyaarash Mareykanka ee rusheeyaan iyo mid shabaab dilaan marka Soomaali shacabka Soomaali dhinac ka soo gubtay shabaab waa meel Kenya waa meel diyaarash Mareykanka waa meel Amazon waa meel waa kana tii ugu dambeysay mid waa midka ugu dambeeyay maanta la sido marka maxaa ka tooga dalbadeena dawladeena federaalka iyo siyaasiyiinta inay hal gacan noqdaan noqomaysiinbe maanta hadduu wax doorasho oo ka mid ahaa lahay iyo warar kale iyo waa la kici lahay laakiin dad la xasuuq masaakiin dhegta jalaq ma loo siin laakiin maanta hadduu ahaa lahayd wax doorasho ku saabsan iyo howlal kale haddii ahaa lahayd waa la kici lahay laakiin wax arrin oo ka darana dhacda maanta dhiig baad daatay dhalinyaro masaakiin goobtooda shaqada iska joogaan iska shaqaysanayaan baa la laayay marka howsha gacanta lagu hayo in la daayo waa Amazon lala xisaabtamo oo miiska la wada fadhiisay maxkamada saaro dadkii ka dambeeyay sheekadan inay dawladda Soomaaliyeed ay cadeyso waay dawladda Soomaaliyeed shacabkeeda rajo weyn ka qabnaa iyo kalsooni weyn ee shacabka Soomaaliyeed dawladda ku leeyihiin ka qabaan marka kalsooniyaas iyo burburin hada dadka maanta la hadli waayo xaqooda la sii waayo hada dadka la hadli waayo xaqooda la sii waayo mid ka darana imaanayso mid ka daran baa imaanayso واي يعني ما أنت أنا لا حسوقي أنا لا دلي قردرة عد بريرك دتك لا إيمانه ولا حسوقها marka dawladda Soomaaliyeed iyo uu horay madaxweynaha mas'uuliyiinta uu horay madaxweynaha ra'iisul wasaare iyo wadawaay ay arinta gacantood ku jirtaa sida xaqan masaakiintan u soo dhici lahaayeen Amazon loo sheego wixii meesha u joogaan in dadkaas shacabka Soomaaliyeed badbaadiyaan ma ahayn shacabka Soomaaliyeed ee ku dul socdaan ee dilaan ee xasuuqaan hada runta loo sheegay jiriirtan $1 maxay u qaadataa inay dadkaas badbaadiyaan على اسكريجي $1 على الصيا محي قاتان شعبك الصومالي اللي بدباديان ما انت الحمد لله عيدا باقبنا عيدا باقبنا الحمد لله هو صعد له مرك امسون هذا سان كسعته ما حد البلا مانديت كده انه لو دميو بناك لو بخيو Amazon هذا سان كسعته
shacabka Soomaaliyeed san u xasuuqayso adeer macaana banaankii loo bixiyo dalba lahayn oo waay hadda waxay shacabka Soomaaliyeed u taraanaa maskiyar ciidanka Soomaaliyeed ayaga dagaaltamaan ayaga meel kasta shabaabta ku bursadaan galmudug hiiraan meel kastago ama soo maxay qabataa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله عبد الملك سودو أمي صوم محي قبطها على شركة يا أصحابي أمي صوم محي قبطها ما أنت أيضا وحي قدال تاغن تهي عيدك صوم مالي قدال تاغن تهي ما أنت أيضا الربيين هورا مرتو عيدك أن إله هذا في هرمر قال إله السيو أيضا ما أنت ملك الشباب كجرتي جق الشباب كجر أيضا برسنا يعني لكن عيدا كانوا الحوجيو عيدا كان هنالو توبرا عيدا كان أيها ما أنت ودن قد دفعنا أما صونا ملو باهنو لعقتي لصير لها يسكري أما صون ما أركنو محاد البنينا يو أنك يو أفريكا إني سيان مجيس عيدا كصوماليات دولة الصوماليات هتيري هادو أنا مربنو ciidan Amazon ciidanka Soomaaliyeed ayaga shabaab bursanay ayaga la taakulayo ayaga isfahmay ayaga shacabkooda waxaanu afkan oo gidisan wataan meel kasta laga keenay dhulkeena dadka kulaanayaan marka ciidanka Soomaaliyeed ayaga hal garab istaago ayaga hala dhiso ayaga hala dhiso kun iyo koow jeer ciidanka Soomaaliyeed maanta hadaa la dhiso wallahi loo baahnin Amazon baqtigeeda haddaba loo baahnin haddadaanba loo baahnin shaqada 8% maxaa hay ciidanka Soomaaliyeed eelborkii haajireen oo hadda eelbork banaankiisa ciidanka Soomaaliyeed qabsatay booliiska Soomaaliyeed harmacad madaxtooyadaasay joogaan fila Soomaaliya maxaa kaloo haayaan marka ciidanka Soomaaliyeed si fiican maanta loo tababaro oo qarash fiican la siiyo oo niyada loo dhiso hala sheegay asxaabta maanta ciidanka Soomaaliyeed niyada loo dhiso oo qarash fiican la siiyo bedel ma la sii lahaa midkan Amazon jariirkan la sii lahaa $1 hada ciidanka Soomaaliyeed lacag fiican la siiyo 500 hadii la siiyo wadankiisana asaa daacad u shaqeysana asaan xaq ku leh lacagtaas uu cuno shacabkiisa yaasiin waa isfahmayaan laana waa shacabkiisa waa u damqana waa walaalkiisa ninkuu u dagaaltamay waa walaalkiisa dhulku badbaadsanay waa dhulku asigii walaalkiisa marka Amazon loo baahan maayo adeer Amazon loo baahan maayo haddii ciidanka Soomaaliyeed dhaqaale fiican iyo kalsooni iyo la siiyo oo hor u socod ba imaan haddaba hor u socda jiro dhaqaaq ma sha Allah marka taas in lagu xoojiyo lacagta la siin lahay Amazon ciidanka Soomaaliya u baahan iyo cuntada la siin lahay Amazon ciidankeena maxay qaataa 300 iyo 200 ayagana maxay qaataan 1000 marka 500 hadii la siiyo ciidanka Soomaaliyeed $500 ciidanka Soomaaliyeed hadaa la siiyo wallahi wajiga Ilaahay ayaga wadankooda wax u qabsan lahay waa wadaniin dhalinyaro badan sharaf la ku jirto wadaniin dhalinyaro badan oo sharaf leh oo mutacallimiin baa ku jira ciidanka Soomaaliyeed oo daacad wadannimo ku jirto oo dhiigooda iyo naftooda u horeen wadankan oo dhiigooda iyo naftooda u horeen wadankan wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh kulli hala sheegay asxaabta marka ciidankaas wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh eedo soo dhawaad
ciidankaas marka in la xoojiyo waa anaga ma u baahnaan ciidan Amisom iyo qawaadkooda maba loo baahnaan lahayn dowladda Soomaaliyeed hadda 4 sano oo ugu horeeya madaxweyne Farmaajo maxaa ugu mahad celihiin Ilaaha ma hadda la koowaad ciidankiina noo dhisay hormar jiro hadda mahad Ilaahay waay mahad labaad maxaa iskala dowladda Soomaaliyeed oo ugu horeey madaxweynaheena sharafta leh ciidanka la dhisay wixii 4 sano ka horeeyay ciidanka Soomaaliyeed wuxuu ahay waa la ogyahay inaha yalas qaban waa la ogaay marka habkan hadda u socoto hadii loo socodsiiyo ciidanka Soomaaliyeed oo walaalaheena Turkiya iyo Qatar iyo wadamadan kale oo ku soo tababartaan oo markaas asaas dufcad cusub imaado 500 loo baahan maayo Soomaaliya wiligeed maxay ahaa jirtay libaaxa geeska Afrika oo baahan meena jareer iyo qawaadkooda na alaaliyaan Amisom oo 4 koona laga keenay 4 koona dad laga keenay inay alaaliyaan Soomaali loo baahan lahayn marka maxaa ka dalbanayna dowladda Soomaaliyeed sharafta leh inay xoojiyaan awoodda ciidanka iyo la dhimane Amisom si lagu dhimi lahay wadanka loogu bixi lahay falankeed la galo waa يعني حسوق يا ضابطي لأن مجلس الشعب كصومال ترفاتك وجيت وابطي مقدشة دحدة جارية دتك كجيران مقدشة دحدة جارية تكنيك أوتان كجيران أمازون عيدما أمازون دمركي يلما سكولي دي مساكين أو سوق صار بحين جارية كجيران ولا أوجيا يعني مقدشة وأوجيا waxay ku darsadeen in dadkii ku laayaan dhulkooda joogan masaakiinta iska shaqeysanaayeen beerahooda iyo dhulkooda dhex joogan guryahooda joogan inay laayaan ay ku darsadeen tarmar looga aamusumay marka Amisom dowladda Soomaaliyeed meel looga fadhiya madaxweynaha sharafta leh iyo inta ka hooseyso jalan odawaay Roble وسدحدودا إلى التلاوة كقادان تي دعدي إن التلاوة عد كقادان وان كو لمو إن الله بالله عيدا كان صوماليات ويلشان ومتعلمين تي وواح صوبرتين وديق قودي وطبكود وهراي إن قرش في عن لسيو ولا توبر وقارك جوا ما قارك كدبدك جرا لصونقو مالم والبو عيدا كان لحوجيو oo magaciisa loo ziyaadiyo macaashkooda ama dhaqaalahooda niyad boo yeelanaa ninka wadankiisa u dagaaltamooyaa walaalkiisa iyo hooyadiisa iyo aabihiisa iyo xaaskiisa iyo cunigiisa u difaacoyaa niyad boo yeelanaa markaas ciidanka haddii lacag fiican la siiyo Soomaaliyeed niyad boo yeelanaa leena si xaq u leh dhulka wacdaraada ka sameynayaan galmudug waatan hadii wacdara ka sameeyno ciidanka Soomaaliyeed oo maalin walbaba ay bursanayaan nabadiidka shabaab Amisom ku jirto halkaas waa gorgor haram cad iyo ciidankii inta kale Amisom ku jirto halkaas halis weydiibo su'aale galmudug wax ka dagaaltamay Amisom miya Soomaaliyeed waa may rag Soomaaliyeed marka dagaaltamooyna halkaas dhulkaas wax xoreynooyo oo galmudug oo shabaab maalin walba god u bursanooyo Amisom miya ama waa ciidanka Soomaaliyeed waa ciidanka Soomaaliyeed طبعا marka waa kaas ciidanka Soomaaliyeed ayaga isku filanba dhulkooda badbaadis kara hadii niyad iyo qarash iyo tababar fiican helaan oo baahan maayaan Amisom iyo jireed
tan saddexaadna waxaan dalbanaynaa dowladda Soomaaliyeed inay AMISOM dhimaan maadheedkeedu waa dhammaad mar walba waa loo cusboonaysa inuu markaan la dhimo عندي كل ما حد طلب لنا كل اللي بحي لكن هذه اللي بحي كرين إن لا ديمو يود الصوماليات ما حد طلب لنا وشرفت له إن أميسون لا ديمو عيدك ولا ديمو جوا كمين اللي جاي بس يا بارك يملح تويد يدور كسفارة مراس جواش مين حتى بمراس الجوجان وماشي سيد جوانه عين صوماليات لأقلقه يسأل الشقيان مركز عينك صومالياتنا أيضا باور كلاسيو هرو السعودان لأن نكا الصوماليات ولا الكيسة نبقوا قيسا مايو عدو كان أو شباب أساك الدفاع عايو هذا شرق يا أصحابته نينكا Soomaaliyeed ودولكيس أساس دفاع عنها هدي قارش فعنا وهلا هدي اهتمام وهلا أسيقا دفاع عنها دولكيس marka ma u baanin maanta jareertan oo dadka xasuuqayaan AMISOM ma loo baahno AMISOM ما لو باهنا فالكان يسميسني إن محكمة لولا كرواي قبطة سيكدع على الشيل كان وكدع رفات كان إن نيكي وسري جانك وسري إلى متك وسي دبلي إن لا حساب تمواي وقعن بر لغبته لأنا دوكا كجرتا لأنا وحق قف مسكين قريجي دول كيس جوجو gurigiisii dhulkiisa joogo haddii lagu xasuuqo waa in maxkamad loo saaro qofkii xasuuqay marka maxaa ka digaynaa dowladda Soomaaliyeed hadda aamusto biri ka darana imaanayso ka bacdi maxaa ka baxaysa meesha kalsoonida ka baxaysa ay u qabeen shacabka ciidanka u qabeen iyo kalsoonida oo shacabka ay u qabeen dowladda sharafta leh maxay bilaabayaan dadkii la wada ogyahay shacabka Soomaaliyeed kullina qore la wada wato Soomaalina qore kulli la wada wato la ogyahay marka maxay bilaabayaan badal ma dadkii oo dhulkoodii oo ciidanka AMISOM joogo dhulka shabaab inta la dagaaltami lahaayeen AMISOM la dagaaltamayaan marka shabaabtii baawra sidaas ku helaysaa marka ninkii Soomaaliyeed dhulkiisa joogo wuxuu ku dhahaa anin Kenyaati ama nin oo magaciisa Ugandes ama jareer intuu idil lahayo AMISOM idil leed marka shabaabtii garab siina nin walaalkay waa ninka marka kalsoonidii maxaa ka baxaysa meesha shaqadii taale ilaana dadka walaaynoyan xaqooda ma la siinoy marka dawladdu wax mu qabanayso marka dadka awoodooda soo baxsanayaan shacabkii qorigooda soo qaadanayaan يا قرأ قادنا مرك عيدك أمسنا لو قادنا مرك ماشية دول شباب تيجي أرجع حسدي جانس يكيلان ومحاد عي لأن نيكي ماشي دقنا محكورة أنتوا نين أجنبي أني دول كي وديل اللي هاي أحس الشباب تاسو نقصنا شباب تلو الوجي هاي والسيدان كل ده كسوق جلان وعاطفة كل كسوق جلان حق بالسمايا شكلها سوق كسوق الشباب تذكر شباب محو كسوق شا حقينا خادني سين وإحنا قلت عدينا ماله شكاس كسوق شا شعب الصوماليين واسك بيرج العيهين مركو قرا انتو نين اجنبي اني لا دغالتم لا يو دولكي ugu dili la yo dawladii iga qabad lahayd oo joogin marka shabaabtii ibnaadarkaygi oo dhulsana soo naqsana marka waa mid oo dabar jab ku ah amnigi iyo ثقدي وكده حيسي شعبكي دولدي كالسوني شعبكي دولد كده حيسي أكبر حيسي مرك محاول دقينا مدحوينينا شرفت له إنه
go-aan cad ka qaato arrintan oo la xisaabtamo nimankan go-aan cad inuu ka qaato la xisaabtamo sida shacabka dhulkaas joogay shabeelle joogeen ama Soomaali weyn oo dhan ee dowladooda markaas u ogaadaan dowladooda xaqooda soo dhicinayso hada dadkii oo dadkaas ka dhinteen maxay ku dhahaan la duugi maayo ama la aasi maayo ayadoo la ogaanin xaqeeni meesha oo nolol saari lahay marka hadda goorgoor inta taa waaye ugu digeena dowladda waana isku hubnaa insha Allah inay shacabkeeda dhageysanayso intay goorgoor tahay intay meesha ka bixin kalsoonidii biri dib bay ku noqonaysaa dowladdii biri dib bay ku noqonaysaa dowladdaas kalsoonidaas hadii meesha ka baxdo marka Amazon in la xisaabtamo sida sheekada mar kale u dhicin sida mar kale u dhicin tikraar kale mar kale u soo naqanin in dowladda wax ka qabato waay arrintaas rabana ka hadlo marka Soomaaliya oo wada salaam insha Allah guul iyo gobonimo Soomaali ha noolaato wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh